بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وبعد الحمد لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تحية waxaan kusoo jirnay maadada engineering basicska ciwaanka ugu horeeya qaadan wuxuu ahaa quantitieska inaan barano. Quantity waxaa u kala qaybinaya scalar iyo vector. Scalarka qaybtiisa koowaad aan ka baran wuxuu ahaa gradientiga casharka hore aan kusoo qaadanay iyo del operatorka iyo qaabka loogu shaqeeyo. ciwaanka labaad aan maanta geli doono waxaa loo yaqaana divergence iyo curl. Divergence iyo curl sida hore usoo sheegnay labadaba waa vector quantity weeyaan. Vector quantity markaa leenahay it means divergence-ga tirada lagu siin doono mar waliba waa vector. Waxay wadataa I cap iyo baaka la yiraahdo J cap iyo K cap ay wadataa. Laakiin curlka asagana waa la mid wuxuu wataa I cap, J cap iyo Z yani K cap waa asagana wataa sidaas la mid markaa. For example hal tusaale marka aan ka shaqeyno oo yani divergence marka marka laga shaqeynayo marka matalan example of divergence. Let's do one example for divergence. Divergence marka lagu siinayo asaga marka waxaa lagu siin doonaa f vector lagu siinaa marka f vector kaaga matalan wuxuu kula mid yahay kale 5x square tusaale hadda familada iska qaadana 5x square I kaaba laakiin ma taraacayna plus maxay inoo xigo 5x square. Yeah, just let's take some number, no problem at all. مثلا قاعدة 2x y j cap plus 3z cube k cap. inta markii aan naqaano waxaa inoola raaciyo points markaa qiimaha ay leeyihiin waa inoola sheegay. It means pointigaaga x, y, z saddexdaba waxay kula mid yihiin مثلا suppose aan usoo qaadan oo kale 1 iska qaadan oo kale matalan saddex halaal matalan haysanaa oo kale dan marka waxaa naga rabaa marka inaan soo saarno yani divergence-ga vectorka. Divergence marka laga shaqeynayo marka waxaa lagu helaa marka del dot f factor. Del dot f factor gradientigana muxuu ahay del times f oo kaliya waa vector maanta la socto marka del marka anaga meeqaynu la mid tahay maanta marka del hore usoo baranay waxay la mid tahay dou by dou x I cap plus dou by dou y j cap plus dou by dou z k cap ay kula mid tahay marka f taada idina marka amba yani f taada idina waa la sii waxaa weeyaan 5x square I cap plus 2xy j cap plus 3z cube k cap waxay sanamtan marka vectorka marka asaga marka wuxuu kaga duwan yahay kii hore يعني rules yar uu leeyahay. kii hore casharkan soo qaadan gradientiga wuxuu ahaa f10 vector maysan wadan f caadi ah yani meeshan I iyo j iyo k midna maysan la socon tira caadi u socotay ahayd. maanta marka waxaa nagu soo kordha marka ciwaan ah haddii I cap oo ku dhaco I cap kala haddii lagu dhufto waxay kula mid tahay 1. haddii I cap lagu dhufto j cap wuxuu kula mid yahay 0. haddii I cap lagu dhufto k cap wuxuu kula mid yahay 0 kula mid yahay. It means laba shay oo isku mid ah laba direction oo isku mid marka la isku dhufto wanaag ka soo baxo laakiin labada direction whenever ay kala duwan yihiin 0 ka soo baxay. adigoo taas kaga qaadanayo marka bal j-da aan fiirino j times j cap maxay kula mid tahay j times j cap maxay kula tahay isku day kartaa I times I cap haddii 1 ahayd y aan 1 u dhaxnay laba xabo isku mid ahaan mayno j iyo j maanta isku mid waa iyadana sidaas la mid waxaa leenahay 1 oo kaliya marka okay j haddii aan ku dhufan I cap maxay la mid noqon kartaa marka hore waxaan soo dhahnaa I times I cap I times this j I times j cap markaa ka shaqeyn waxay soo baxay 0 y 0 ku dhahna way kala qiimo duwan yihiin soomaahan haddana j iyo I isku dhacdo way kala qiimo duwan yihiin sidaas la mid ah soo iyana 0 la mid noqonay markaa ka warna haddii aan
j cap kana haddii aan ku dhufano k cap sidaas lamid idan maxay noo soo baxeen 0 ay noo soo baxaya marka k da sidaas lamid ah k cap haddii ku dhufto k cap kale maxay noo soo baxaya 1 haddii k cap lagu dhufto I cap aan lehe j cap haddii lagu dhufto waxaa ku soo baxaysa 0 haddii k cap lagu dhufto I cap maxaa ku soo bixi doona 0 ku soo bixi it means marka waxaa si simple wax dhigi kartaa laba direction oo isla I cap haddii ku dhufto waa 1 j cap haddii ku dhufto waa 1 k cap haddii ku dhuftana waa 1 laakiin haddii ay kala duwan yihiin waa 0 marka adigoo halkaas ka shaqo qaadanaya isku dhufshadaan aan sameynaa marka aan sameyno yani dot product aan sameyno dot product markaan sameynana marka del times f factor waxay kula mid tahay do by do x I waxaan ugu dhafataa 5x square I ku dhuf marka I da hadda isku dhacdo maxaa soo bixi doona marka 1 soo bixi doonto marka soo meesha dhan waxay noo noqonaya marka do by do x 5x square plus do by do x I waxaa ku dhafataa 2xy j iyo I haddii lagu dhufto maxay ahayd balanka 0 noqonaya soo ma 0 haddii ku dhacana 0 noqonaya soo kulligood 0 noqonaya haan noo soo qori marka do by do x I hadda waxaa ku dhafataa 3z cube k cap iyo I cap haddii lagu dhufto waa 0 isku dhufshadu maadaama 0 keenayso kulligood 0 waa ka imaanaysa so no need to write okay then let's do the y do by do y j cap haddii aan ku dhufano 5x square I cap iyo j cap way kala qiimo duwan yihiin laba yani shay oo kala qiimo duwan wax la isku dhufto maxaa kasoo baxaya 0 waa kasoo baxaya j times I haddii 0 nagu soo baxayso 5x square kan iyo yani do by do y idan maxay noo soo bixi doonto 0 noo soo bixi doonto marka no need to write it do by do y j cap haddii aan ku dhufan 2xy j cap iyo j cap isla yihiin maxaa noogu soo bixi doono 1 noogu soo baxaya marka qiimaha kale maxaa noogu soo baxaya marka do by do y ku dhacsan 2xy aan soo qornayna marka waxaa leenahay marka plus do by do y 2xy okay j cap iyo j cap na 1 noqdeen 1 yani tira ku dhacsanna lama qorto okay zada sidaas lamida marka haddii aan ku dhufano k iyo I way kala duwan yihiin waa 0 k iyo j way kala duwan yihiin waa 0 k iyo k laakiin 1 noogu soo baxaya marka halka marka waxaa noogu soo baxaya marka do by do z dan qiimaha z ah haysan waa meeqo waa 3z cube k cap na 1 noogu soo baxay marka so we have like this value halka markaan taaganahay marka do into f factor waxay kula mid tahay marka 5x square kan marka partial derivative with respect to x ugu sameey marka partial derivative with respect to x haddii aan ku sameeyno waxay noqonaya marka 10x plus 2xy partial derivative with respect to y ku sameey waxay noo noqonaya plus 2x plus 3z cube partial derivative with respect to z ugu sameey waxaa noqonaya 3 da harug soo ganaca marka waxaa noqonaya 3z square then waxaa leenahay marka 10x iyo 10x maadaama isla yihiin isugu keendara marka do f into f factor waxay kula mid tahay 10x iyo 2x isugu keendara waxay noqonaya 12x plus 3z square bonds maanta la siiyay markaan ku shaqeyno marka bonds maanta la siiyay marka meeqo ahay 1,1,1 it means x ka 1 ku mid yahay y 1 ku mid yahay z 1 ku mid tahay marka del into f factor waxay kula mid tahay markaas 12 times 1 plus 3 times 1 square oo kula mid ah 12 plus 3 the last qiimaha heli doona waa meeqa marka 15 del into f factor del into f factor marka maxaa inoo soo baxa marka 15 oo tira caadi marka tiradan marka waa magnitude oo kaliya scalar waaye marka halka marka waxaan ka dareemanaa marka gradientiga asaga qiimo waxaan la siinaa scalar wuxuu u bedelaa vector u bedelaa gradientiga shaqadiisu muxuu ahay scalarka wuxuu u bedelaa vector quantity u bedelaa sidaas si lamida divergencega asaga marka vectorka lagu siiyo wuxuu u bedelaa scalar u bedelaa asaga marka wuxuu u bedelaa scalar loogu bedeli doonaa because qiimaha hadaan la siiyay meeqa ahayd variable factor keen 5x square I cap 2xy j cap 3z cube k cap so I cap j cap z iyo k cap haysan maadaama qiimahaas haysan marka way isbedesha qiimaheena marka tira caadi aynu soo baxa tira caadiga maadaama aynu soo baxna marka waxaan leenahay marka waxaa loo yaqaanaa markaasoo kale marka yani scalar inuu noqoto macnaha tiradeen so divergencega shaqadiisa dhan waa maxay marka waa inuu vector numberka uu ka bedelo u bedelo scalar yani scalar number marka inuu u bedelo
so in some case waxaa jirta xaalado qaar oo loo yaqaano solenoidal case. waxaa la yihahdaa solenoidal vector. solenoidal factor maxaa la marka solenoidal factor it means yani haddii deltaada lagu dhufto f factorkaaga haddii ay kula mid noqoto 0 waxaa loo yaqaanaa sinusoidal loo yaqaanaa marka. hal example oo gaabanaa ka bixino example matal waxaana la siiyo kale f factorkeena anaga maanta inuu la mid tahay 5yz I cap plus 3xz j cap plus 4xy k cap. waxaa inoola dira markaa vectorkaana la weydiiyey anaga marka yani waxaana la weydiiyey divergency inaan soo saarno. divergency marka maxaa lagu helayaa markaa del oo ku dhacsan f factor. del times f factor maxay kula mid tahay markaas deltana qiimeeda maxay ahayd dou by dou x I cap plus dou by dou y j cap plus dou by dou z k cap oo ku dhacsan. f-taada meeqa haystaa maanta marka waxaa haysanaa 5yz I cap plus 3xy plus 3xz I mean j cap plus 4xy k cap. qiimaha haysanaa marka isku garaacna matala marka items I waxay inoo noqon doontaa 1 inoo noqon doontaa meesha waxaa noogu soo baxay markaa dou by dou x waxaa haysanaa tirahaan markaa 5yz haysanaa marka plus idan haddii aan ku garaacna jdan waxay noo noqon doontaa 0 idan haddii aan ku garaacna kdan waxay noqon doontaa 0 noqon doontaa marka qaybta waa usoo gudi marka dou by dou y j captan haddii aan ku garaacna j captan kale waxay noo noqon doontaa 1 inoo noqon doontaa marka qiimaha j captan ay haysato waa meeqa marka waa 3xz plus dou by dou z kdan haddii aan kda ku garaacna waxay noo noqon doontaa 1 inoo noqon doontaa marka qiimaha kda ay wadato waa maxay marka waa xy. okay with respect to x u derivative gareey qiimaha marka y iyo z wax x ma ku jiro waa may waxay kula mid tahay 0 plus with respect to y u derivative gareey x iyo z wax y miya ku jiro may waa 0 idan plus يعني x y with respect to z u derivative gareey haddii with respect to z u derivative gareey maadro wax z miya ku jiro may u derivative gareey marka 0 noqonaya marka so waxay inoo soo baxday marka del times f factorkaaga inay kula mid tahay 0. xaaladan oo kale marka waxaa loo yaqaanaa marka solenoidal case aa loo yaqaanaa marka halkaa waxaan kaga baxaynaa divergency case then insha allahu tacaala cashkana xiga waxaan geli doonaa cal ama wax la yiraahdo vectorka qaybtiisa labada loo yaqaano cal. so casharkan hore waa kana gradientskan kusoo baranay example aan kasoo qaadanay casharkeena labaad isagana sidaas lamid waxaa kaga soo shaqeynay divergencyga. casharkeena saddexaadna waxaa kaga hadalnay halkiis oo kamid ah divergency oo loo yaqaano solenoidal case markaa wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.